dhegaystayaal barnaamijkii toddobaadkii hore sida idinku maqasheen dhurwaagu wuxuu ka mid yahay dugaagga hilibka oo keliya ku nool oo haba yaraatee aan oomati kale hunguri ka gelin maalintuu inta dhasho dhulka ka kaco ilaa marka uu bakhtiyana wuxuu ku raad joogaa xoolo dagan oo ciddii iska lahayd ay u wadeecaysay gobollada ay ku dhaqata qaarkood waxay soomaalidu bahalkaa u qaybisaa saddexda nooc ee kale ah hintifaa oo ah habeenkii markay tahay midka ariga xeryaha ugu dhaca qormahaalig oo ah midka geela laaya iyo cayle cataatir oo ah dagallada laga guuray harag iyo maqaar wixii uu ku arko midka ka ununufa sidaa daraaddeed ma aha in lala yaabo mar walba mahmahaa dhurwaaga laga sheegaa haddii ay ku wareegaan halganka joogtada ah ee uu ugu jiro helitaanka hilib uu ku noolaado xilligii la joogaba dhurwaagu intaas wuxuu jafayaa dhul qodaxdu sariiran tahay dhul dhagax iyo dul miirana dhul cagaag badan oo ciddiyaha ka dhilqiya dubkana ka murxiya hase ahaatee uma uu fadhiisto saacidina uma maqna umana xil qabtee jarmaado iyo boqoole carraabo iyo guuraba wuxuu ku qasban yahay inuu socod ku jiro foog iyo fiidba wuxuu u tafaxaydan yahay shiid iyo caddiin siduu hilib ku heli lahaa si aanay nafta u kala dhaqaaqin haddaba maalin maalmaha adduunka mid ah ayaa waxaa ugaarsi u soo kallahay dhurwaa duq ah oo toddobaadkii hore oo idin ku sari waayey cadduun ruubad ah oo kulayl badan ayuu dhex jaqabsanayaa suudiga daraaddiisna kolba cagaha ayuu ciidda kala boodaya balqaharaacdii kolay tahay ayuu daalay tallaababa wuu qaadi kari waayey dabadeedna inuu nasto ayay tala kaga dhammaatay geed quraca harkii intuu ku leexday ayuu iska hiraan hiray wax yar kadibna cagihiisii ayuu hoos u eegay mase maxaa dhiig ka da'aaya maxaa qodax ku mudan faraha suulasha afarta ah iyo cirbaha inta dhulka la dhigo meel waliba way haaraysaa xubin waliba way dhaawacan tahay kolkaas buu hamiyey wuxuu naftiisa kula sheekaystay inuu ku rayn lahaa haddii uu heli lahaa saydhada iyo cagaagga wax ka xigsada oo sida dadka kaba loogu toli lahaa haddana wuu isla yaabay wuxuu garan waayay sida ay fikraddaniba ugu soo dhacday wuxuu xusuustay inuu dhurwaa yahay oo cagihiisa dhiigga ka da'aya aan cidina dan iyo daarad ka lahayn dabadeedna isaga oo ku raalli ah waxa uu yahayna aqoonsan ayuu iska hilheshay oo inta hortiisa u dhaqaaqay ku tiraabay haddii kaba la ii tolana alxamdu lilaah haddii aan la ii tolinna rabbilcaalamiin qoraaxdaasina waxay waagii dambe noqotay mahmaha uu xusuusto wax inuu helo uu ku fiicnaan lahaa qof loo diiday ama laga hagraday isla markaasna naftiisa ku dhiirigelinaya waxa uu waayey inuusan u rambasin dantiisana aanu uga harin sida laga yaabo dad badan inay u haystaan arrintu ma aha oo dhurwaagu mar walba geesi ma aha xoolaha haddii uu soo weeraro rirmiyigu way kula diriraan wayna ka dhacsadaan haddii lagu maahmaahay libaax nin aan aqoon baa lax ka rita dhurwaagu waa ka duwan yahayoo lax iyo riba hadduu wax kala tago way ka dhigtaan dabadeedna hargaad iyo dhagax siday ugu wadaan ayay dhulowgeedaale uga soo haraan isaga oo diihaalkii uu qabay daalna ugu kordhay taasi inay run tahayna waxay soomaalidu daliil uga dhigataa dhurwaagii ariga mayracanaya u soo gaatamay ee ida iyo riyaba markay dareemeen ay dhagac yidhaahdeen cagahana ay wax ka dayeen dhinacii uu arigu u diday ayuu isna u afar qaaday hase ahaatee wax yar kadibba si keliisa ayuu kobcodla'a isu taagay oo hortiisa ku dhaygaga tolow maxaa u muuqday waa lax shilis oo arigii diday ka hadhay dhinaciisana u soo cararaysa intuu yaabay oo amankaag dhammeeyey ayuu si degdeg ah dhabalka u jeediyey oo jihadii uu ka yimid u faranduleeyey iyada oo laxdiina ay ka daba jaran tahay welibana ay ciyayso show isagu ma ogee laxdu waa indhala'dahay show arigeedii meel uu u diday iyo meel uu ka jiraba war uma hayso show markii uu u soo dhowaadayba jaanqaadkiisa ayay dareentay show arigii ay ku jirtay neef ka mid ah
ayay u qaadatayoo dhurwaaga ay daba cararayso wehel bayba ka dhiganaysaa. wuxuu ka baxsado laxduna ay daba orodaba. markii dambe oo malaha uu laba geedni ka soo fogaaday ayuu gadaal eegay, mase maba muuqato oo goor hore ayayba isaga hadhay. welise wuu amankaagsan yahay, wuuna ku gar lahaa, maxaa yeelay xoolo ka carara mooye weligiiba xoolo xaggiisa u soo carara waa u maanta. galabtaasna orodkii dheeraa isaga oo weli la xurtaysan ayuu yidhi, war madayradaan cun islahaa ba aniga calaf iga dayday. oo gadaalkii noqotay hawraar lagu maahmaaho, uuna ku tiraabo qof waxtar ama waxsiin kale ka filaayay qof kale oo uu u hanweynaa, hase ahaatee ku hungoobay, welibana isagii wax doonayay wax la biday, halkii wax laga siin lahaana wax laga weydiistay. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga. waa ina toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.